daawadayaal qaybtan waa qaybtii saddexaad wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda Horfadhi Media waa 4 bishii May waa 2020 waa maalmo isniin ah markale barnaamijka falanqaynta wararka warbixinada dhinaca diblomaasiyadda ee xarunka asaguna sida weyn adduunka ugu faafaya ayaa u muuqda mid sii socda dalka Mareykanka ayaa dhimashadu haatan waxa ay dhaaftay 67,000 oo qof oo dhimasho halka ay ku dhowdahay milyan iyo 200 oo kun dadka xanuunka uu soo ridanayo ee soo daadinayo dhanka kalena waxa la sheegay in caalamka oo dhan dhimashadu ay ku dhowdahay 250 oo ruux halka 4 milyan wax aan ka yarayna oo in ka badan 3 milyan iyo 500 oo kun oo ruuxna ay adduunka xanuunkan haatan la dala dhacayaan jaamacadda Johns Hopkins oo iyadu university dalka Mareykanka gacanta ku haysta inta badan ee dhaysa arinta ayaa sheegtay in arintu u muuqato mid markaasi dalalka qaarkood ay ka soo raaysanayaan gaar ahaan dalalka ka mid tahay dalalka Spain iyo Italia Francisca iyo dalal kale dalka Spain ayaa toddobaadkii lixaad sii wada in hoos u dhac dadka dhimanaya ay ku timaado iyo kuwa xanuunka soo ridanayo iyadoo Francisco sidoo kalena uu sheegay in aad ay hoos ugu dhacayso dadka xanuunka uu soo ridanayo wararku waxa ay sheegayaan in dunida oo dhan ilaa hadeerto aysan haynin tallaabo ayaa la yiri laga hortagi xanuunkaas